dastuurkiisa waafaqsan sidee u aragtaa aad baan u soo dhaweynaa sababtoo ahna waxaan ahay dad islaam ah dastuurkuna waa dhaqankeeni iyo maaragtay diinteeni oo la isku dabaqay waxayna tahay markasta inaan maaragtay diinta wax ka soo horjeeda qaadanin dastuurka iyo maaragtay diinta in la isku dabaqaahina waa wax islaamka maaragtay oo ah muhiim qaasatan annaga oo Soomaali ah diinta iyo dastuurkiisa waafaqsan sidee u aragtaa dad islaam waxaan nahay caqiidaan leenahay diinaan leenahay dastuurkeenna waa inuu noqdo dastuur diinta islaamka la shaqay kara diinta islaamkana base looga dhigo oo dastuurka waxaaba ku qoran qodobada ugu horeeya dastuurka waxaa base u ah diinta islaamka marka dastuurka haddii diinta islaamka base u tahay in wax la qorqoray kaliya aan la qaadanayn shariicada islaamka lafsadeeda lagu soo dabaqo diinta dastuurka lagu soo dabaqo oo la tusiyo in shariicada iyo dastuurka ay waxba isku diidanayn diinta iyo dastuurkiisa waafaqsan sidee u aragtaa أنا فكرت ده دستور مكلي هذا وحش شغل وكل هاي دين عدينته ما بتشرتب صوبته دستور تنا إلهي وحول نوح بالك عن دينته إلهي وحول واحد إيه دستور كان واحد أنا جا عن قرني عن كل شيء لابد إنه واحد كسر سقاف قرن كرنا diinta iyo dastuurkiisa waafaqsan sidee u aragtaa maxumo waxaan hadda arkay qodobka koowaad laba qodob oo dhahayo diinta iyo dalka oo ku dhex jiro dastuurka soo marba hada wax diintu waxa ay dhumayn ani ahaanteedu waa aaminsanahay